بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم kusoo dhawaada channelka aniga cabdika ayaa cabdi aalaba ugu barateen maadooyinka sayniska culumta sayniska gaar ahaan xisaabaadka iyo fisikska iyo casharo la halmaal ah kombiyuutarada casharka maanta aan rabnay inaan gebagabeyno waa trigonometry fusion 1 oo hore aan usoo bilownay muuqaalkii ka horeeyay qaybtiisa koowaad ayaan ku aragnay qaybtan waxaan ku qaadanaynaa casharkii trigonometry fusion gebagabadiisa insha Allah haddii Ilaahay idmo wuxuu noo joogay example 1.26 ayuu noo joogay example-kan sidan ayuu u qoran yahay wuxuu u qoran yahay find all solutions for cos x open bracket cos x plus 3 is equal to 1 write the solution set waxaana laga rabaa cos x solution setkiisana laga rabaa waxaana laga rabaa solutionada ama xalka equation-kan ama taxanaha markaan furfurno possible solutions noo soo baxaya ama solutions that satisfies the equation ayaana laga rabaa ustaad okay waxaan gudagalaynaa inaan xalino waxaana la siiyey ustaad waxaa waaye cos x plus 3 equal to 1 okay ustaad equation-kan ugu horeyn waxaan sameynaynaa waan fududeynaynaa equation-kan ayaan fududeynaynaa si aan u helno equation na jihaynayso ama meel nagu simeyso okay cos x times cos x labadan cos ayaa isku dhacay waxaan helayaa cos square x plus cos x times 3 waa 3 cos x waxay la eg tahay 1 okay 1 dhanka kale soo mari waxay noqonaysaa cos square x plus 3 cos x minus 1 is equal to 0 ustaad equation-ka anaga hadda wuxuu noo noqday equation meel nagu hagi karo meel nagu jihayn karo sababtoo ah equation-ku wuxuu noqday quadratic equation way aan u raacno ayuu leeyahay okay ustaad quadratic equation-ka afar siyaabood ayaan ku xallin karnaa waxaan ku xallin karnaa completing the square ayaan ku xallin karnaa or waxaan ku xallin karnaa quadratic formula ama waxaan ku xallin karnaa grouping by factorization ama graphical method intaba ma qaadanayna waxaan qaadanaynaa solution-ka midku ku habboon ayaan qaadanaynaa oo quadratic formula sababtoo ah asiga ayaa ku habboon factorization method aan isticmaalaynaa haddaan dhahno ma helayno waxyaabaha qaar aan u baahannahay ayaan helaynin okay quadratic formula markii la raadinayo values waxaa lagu raadiyaa formulahan oo ah minus b plus or minus square root b square minus 4ac all over 2a ustaad formulahan ayaan isticmaalaynaa si aan ugu xallino mas'aladan okay equation-kan ayaan fiirinaynaa equation-kan information-ka waxaan ka helaynaa qiimaha e waxaa la equation-ka horgelihiisa la waa 1 cos x waxaa horgal u ah 1 baa u qarsan okay coefficient of b horgalaha b waa qaybta ku xigta oo ah horgalaheedu waa 3 okay waxaan kaloo u baahanahay ustaad inaan ogaano c qiimaha c waa qaybta ugu dambeysa oo -1 okay halkaa markaan joogno ustaad waxaan sameynaynaa value-ga ayaan waxaan ku bedelaynaa qaacidadan si aan u helo qiimaha cos of x ama value of x maadaama halkan ay b negative ay ka tahay qaacidada negative halkan ay positive ka tahay aan dhahno -3 plus or minus square root of 3 square minus 4 lagu dhuftay a oo 1 ah lagu dhuftay minus 1 oo c ah loo qaybiyey 2 lagu dhuftay a oo qiimaheedu 1 ah okay ustaad wax kale maana sameynin formulihii ayaan waxaan ku bedelay information-kii aan haystay ayaan qaacidada ku bedeshay okay waxaan leeyahay marka halkanna waxaan haystaa -3 plus or minus negative-kan iyo negative-kan way isku dhacayaan ustaad kan square garay waa 9 labadan markay isku dhacaan positive ay noqonayaan 9 waxaad ku dartaa 3 waxaad helaysaa 13 root 13 all over 2 times 1 waa 2
okay halkan hadda cot x laba qiimo ayaan heli karaa, laba qiimo ayaan halkan ku helayaa. okay qiimaha ugu horeeya aan helayo waxay tahay cot x, qiimaha koowaad aan heli karo waxay tahay waxaan isticmaalayaa minus plus minus 3 plus root of 13 all over 2. ustaad calculatorka soo qabso, calculatorka ayaan waxaan gelinayaa negative 3 plus root 13 loo qaybiyey 2 answer. waxaan helayaa cot x koowaad waxaan helayaa ustaad, waxaan helayaa 0.302775 okay qiimaha koowaad intaasaan helaynaa ustaad. qiimaha labaadaan isticmaalaya x labaad, cot x2 waxay la eg tahay negative 3 minus root of 13 all over 2. ustaad calculatorka soo qabso, waxaa leeyahay negative 3 root 13 negative 3 minus root 13 loo qaybiyey 2 helaysaa negative 3.302775 waa qiimaha labaad ee x. kullama cot qiimaheeda aan rabo inaan helo waxaan ku heli karaa 1 all over tan x. intaas waa silifaniya male. okay tan x na haddaan cot haysto reciprocalkeeda leh 1 all over cot x saan bay noqonay reciprocalkeeda, labadana isku dhufanaynaa then is equal to 1 ay leedahay, haddana tan haddana waa reciprocal of cot. okay halkan waxaan sameynaa marka qiimaha cot waxaan ku raadinayaa taana u bedelaa. yes waxaan haysta midda koowaad aan ka bilaabay, tan of x waxay la eg tahay 1 all over cot of x koowaad waa 0.302775. okay ustaad calculatorka soo qabso, hal loo qaybiyey 0.302775 leh waxaa kuu soo baxayo tan x waxay la eg tahay 3.302776. shift ustaad waxaad sameynaysaa calculatorka ayaad waxaad saaranaysaa radian. shift noocan haddaa isticmaalaysid, calculatorka noocan haddaa isticmaalaysid ustaad waxaad isticmaalaysaa shift ay leedahay mode taabane number 4 radian waa. okay radian aan saartay 1 loo qaybiyey 0.302776 qiimahaas naysa shift tan. yes okay waxaan rabaa marka qiimaha x inaan helaan rabaa, waxaan leeyahay calculatorka shift tan x dheh qiimahan geli 3.02776 sidaan u geli. ustaad waxaad helaysaa meeshan waxaan helayaa 1.276 waay, round off ku sameey waa 1.28. okay for all solution alla soomaan right for the all solution kan waxaan dhihi karaa marka waxaan ku darayaa qiimahan aan haysto waxaan ku darayaa plus by n. waxaan kala raadinaynaa cot qiimaha x labaad, cot x2 x labaad ama cot x labaad ayadana waxaan ku helaynaa, waxaan leeyahay cot x labaad waxay la eg tahay tan x cot tan aan ku bedelinaa soomaan waxay la eg tahay marka 1 all over cot x. halkaan aan kusoo sheegnay waxaan dhahnay cot x waxay la eg tahay 1 all over tan x kullama tan x aan raadinayo reciprocalkeedu noqonaa. cot 2x waxay la eg tahay tan x 1 all over cot x. intaas waa isla fahanay umaleeya. okay qiimaha x labaad soo qaado marka
tan x waxay la eg tahay 1 over 3.302776. okay, calculator soo qabso 1 divided by 3.307756. okay, waxaad helaysaa tan x waxay la eg tahay 0.302776. okay, waxaan raadinayaa waxaa marka qiimaha x aan raadinayo waxay la eg tahay tan inverse qiimahan 0.302776. micnaheedu ay tahay waxaan ku raadinayaa calculatorkan soo qabsanaa qiimaha x markaan raadinayo waxaan leeyahay shift tan 0.302775. halkan waxaa ii soo baxayso qiimaha x waxay la eg tahay 0.294001 oo negative ah. halkan ay negative ka tahay intaas waxaan isweydiinaynaa tanka intuu negative ka yahay. tanka wuxuu negative ka yahay quadrantaha koowaad iyo midka afraad. quadrantaha labaad aan rabaa quadrant 2. okay, angalkaas aan haysto waxaan u bedelayaa quadrant 2. waxaan ku darayaa by aan ku daraa by plus minus 0.294. okay, qiimaha by wuxuu la egyahay 3.142 minus 0.294. kala jaro marka 3.142 laga jaray answer dheh waxaad helaysaa 2.84799. waaxda kale uu negative uu ka yahay all student take chemistry waa waaxda afraad. 2 by aan ka jaraynaa angolkan 0.294. okay, waxaan leeyahay marka 0.242 times 2 minus 0.294. halkan waxaa haystaa 5.99. labadan waaxood aan haystaa marka solution setkaada wuxuu noqonayaa marka solution setkaada labadan wuxuu noqonayaa 2.84 round of ku samey 8 plus by n, 5.99 plus by n. solution setkaada wuxuu kaloo noqonayaa answerkii hore oo ah 1.28 plus by n. this is your solution set. ustaad examplekaas halkaas ayaan ugu gudbaynaa. 1.27 ustaad sidaan ayuu u qoran yahay. solve waxaad xalisaa tan x plus root 3 is equal to sec x over the interval 0.2 by. intervalkan aan ku xalinaynaa solutionkan aan hayso. okay, waxaa lahay tan x plus root 3 is equal to sec x. waxaan ku xalinaynaa intervalkan 0.2 by. half open ama half closed waa intervalkan oo qaybtaasuu ka furan yahay qaybtana close uu ka yahay. okay, waxaan fududeynaynaa expressionkan tan x plus root 3 is equal to sec x. ustaad single trigonometric equation kii labaad wuxuu ka hadlayaa xiriirka ka dhexeeya tan iyo sec. wuxuu leeyahay 1 plus sec square wuxuu tilmaamayaa 1 plus tan square x inuu la egyahay sec square x inuu la egyahay. marka expressionkan labada dhinac ayaan square ka saarayna. halkaasna square ayaan ka saaraya halkaana square ayaan ka saaraya. qaybtaanaan furfurayna marka tan x plus root 3 oo lagu dhuftay tan x plus root 3.
okay mid samey tan banaanka ii dhigo tan x plus root 3 soo qaado plus dheh plus root 3 tan x plus root 3 okay tan times tan halkaan waxaan helayaa ustaad tan square x plus tan times root 3 tan x plus root 3 times tan x root 3 tan x plus root 3 times root 3 root 9 square root ka bix okay ustaad halkaan waxaan helayaa tan square x plus 2 root 3 tan x plus 3 is equal to sec square x ustaad markaan furfuray qaybta hore ama left hand side markaan furfuray waxaan helay tan square x plus 2 root tan x plus 3 is equal to sec square x okay horena waxaan usoo tilmaanay 1 plus tan square x inay la eg tahay sec square x second single trigonometric equation ka wuxuu tilmaamayaa haddii hal lagu daro taankoo laba jibaaran x ama xagal waliba uu wato waxay la ekaanaysaa sec square x ay la ekaanaysaa marka meeshaan sec square x qiimihiisu waxaa waaye 1 plus tan square x halkaan ayaan ku bedelayaa marka okay ustaad ila soco tan square x dheh plus 2 root 3 tan x plus 3 is equal to meeshaan sec square waxaad ku bedeshaa 1 plus tan square x ustaad tan square x haddaan dhankan soo mariyo ama tan halkaas haddaan mariyo way kala jarmayaan marka isla bixi ustaad halkaan waxaan helayaa 2 root 3 tan x plus 3 is equal to 1 2 dhanka kale soo mari 2 root 3 tan x waxay la eg tahay 1 minus 3 halkaan oo la eg 2 root 3 waxay la eg tahay tan x waxay la eg tahay labadan kala jar negative 2 si aan u helo qiimaha tan x halkaan 2 root 3 u qaybi halkaanna 2 root 3 u qaybi labadan waa isla baxayaan tan x waxay la eg tahay negative 2 all over 2 root 3 oo la eg meeshaan isla fududay isla bixi tan x waxay la eg tahay yani laba u qaybi inta halaa kugu soo haray negative 1 all over root 3 ustaad halkaan waxaan helnay tan x inuu la eg yahay negative 1 all over root 3 inuu la eg yahay helnay okay waxaan isweydiinaynaa taanka intuu negative ka yahay taanka laba meeluu negative ka yahay quadrantaha labaad taanka negative uu ka yahay iyo quadrantaha afaraad taanka wuxuu ka yahay negative uu ka yahay marka qiimahan aan haysano waxaan u bedelaynaa quadrantaha labaad iyo quadrantaha afaraad ayaan u bedelaynaa ustaad okay taanka goormuu 1 all over radical 3 la eg yahay taanka wuxuu 1 all over radical 3 la eg yahay ustaad markii uu 30 degree u yahay negative 1 all over radical 3 taanka 30 degree ayuu ka leeyahay okay 30 degree wuxuu ka yahay 1 all over say 30 degree ama si fudud ustaad waxaad dhihi kartaa haddaad haysid calculatorka noocan haddaad haysid waxaad dhihi kartaa shift 1 loo qaybiyey root 3 saan markaa u gelisid 1 loo qaybiyey root 3 markaa saas u gelisid equal leh intaasaa kuu soo baxayso halkaas markay kuu soo baxaa leedahay shift tan equal 30 degree yes 30 degree marka 1 all over root 3 30 degree markuu yahay uu leeyahay okay ustaad marka waxaan sameynaynaa 30 degree gan waaxda labaad u bedel haddana waxa u bedeshaa waaxda afraad waaxda labaad markaan u bedelayo reference angle kan ku dara halkaas ayaan ku daraa labadan isku dar waa 210 degree waaxda labaad wuxuu ka noqonayaa quadrant
quadrantaha labaad waan ka jaraynaa ustaad ya quadrantaha labaad waan ka jaraynaa minus kala jar 150 degree ayuu la egyahay waaxda afaraadna waxaan sameynaynaa 360 ayaan ka jaraynaa 30 degree waxay ina siinaysaa 330 degree 330 degree marka maadaama radian uu ahaa markiisa horeba radian uu ahaa waa inaan u bedelnaa kan radian u bedelnaa kaasin radian u bedelnaa okay quadrantaha koowaad labaad 150 radian markii loo bedelayo 180 aa loo qaybiyaa byna waa lagu dhuftaa ustaad labadan isla bixi by 3 waa 5 by 3 waa 6 halkan waxaa haystaa 5 by all over 6 waa waaxda labaad okay waaxda afaraad quadrantaha afaraadna quadrantaha afaraadna 330 loo qaybi 180 lagu dhuftay by eber la bixi by 3 waa 11 by 3 waa 6 halkan waxaa haystaa 11 by all over 6 11 by all over 6 labadan marka labadan teebaa solutionka qaadanaysaa oo solutionka xalka 10 ku qaadanaynaa waxaan u baahannahay inaan proof gareyno ma midaan ayaa solutionka satisfy gareynaysaa ama midaan ayaa solutionka satisfy gareynaysaa marka equationkii hore aan qoranaynaa oo ahaa tan x plus root 3 is equal to sec x ustaad equationka ayaan ku buuxinaynaa labadan keebaa solutionka waafaqa ama nawaafajinayo ama xal u ah 5 by all over 6 ama 11 by all over 6 keebaa solutionka xal u ah midda ugu horeysan aan ku tijaabinaynaa waxaan leeyahay meesha x waxaan ku bedelayaa 5 by all over 6 plus root 3 waxay la eg tahay sec 5 by all over 6 okay ustaad labadan angalan kala qaadayna angolkan 5 by wuxuu la egyahay tan 150 degree plus root 3 waxay la eg tahay sec 150 degree yacni angolkan markiisa hore wuxuu ahaa 150 si aan u helno qiimahan waxaan u baahannahay angolkan inaan degree aan ka dhigano maadaama radianka ay complicated ay tahay okay tan 150 reference anglekiisa waa 30 degree tan 30 meeqay la eg tahay yacni tan 150 reference anglekiisa ustaad waa 30 degree sababtoo ah 30 degree ayaa markiisa hore aan ka dhignay waxaan ka dhignay 150 degree okay marka tan meequu la eg yahay wuxuu la eg yahay tan 150 wuxuu la eg yahay negative 1 all over root 3 buu la eg yahay plus root 3 waxay la eg tahay sec 150 and reference anglekiisu waa 30 secna waa reciprocal of cos 30 meeqay la eg tahay ustaad cos 30 ustaad waxay la eg tahay cos 30 ustaad waxay la eg tahay root 3 all over 2 bay la eg tahay cos 30 ustaad waxay la eg tahay root 3 all over 2 30ga intuu ka imaaday aad isweydiinaysaa reference angle-ka 150 ayaa 30 degree ah intaas waa inaad fahantaa yacni 150ka markiisa hore intuu ka imaaday wuxuu ka imaaday 180 laga jaray 30gii asalka ahaa aan ku laaban si aan u helno marka cos 30 waxay la eg tahay root 3 all over 2 hadday cos 30 root 3 all over 2 ay la eg tahay ustaad meeshaan imaam marka sec 30 meeqay la eg tahay waa reciprocalka cos soomaan kanaan reciprocal ka dhigayna marka kan ayaan reciprocal ka dhigayna wuxuu noqonayaa 2 all over root 3 okay cos quadrantaha labaad maxay ka tahay negative ay ka tahay yes meeshaan aan xalin marka ustaad negative LCM ka meeqa meeshaan labadan LCM kooda waa root 3 root 3 u qayb waa 1 ku dhuf negative 1 waa negative 1 root 3 1 u qayb waa root 3 ku dhufo root 9 square root bixi waa 3 waxay la eg tahay labadan plus minus 1 plus 3 waa positive 2 all over root 3 waxay la eg tahay negative 2 root 3 ustaad isku fiiri labadan qiimo 2 all over root 3
ma la eg tahay negative 2 all over root 3 ma la eg tahay lama eg why sababtoo ah kan negative baa ku jiro kanna waa positive labadan qiimo value does not satisfy the expression qiimahan 5 by all over 6 ma buuxinayo shuruudda looga baahnaa equationkan inuu u buuxiyo uma buuxinayo okay waxaan u gudbaynaa marka midka kale saan u proof gareynaa asigan equationka soo qaado tan x plus root 3 waxay la eg tahay sec x meel waliba x waxaan ku bedelinayaa angle-kan aan ku bedelaya okay tan x waxaa ku bedeshaa 11 by all over 6 plus root 3 waxay la eg tahay sec 11 by all over 6 okay ustaad tan markaan degree u bedelo maxay la eg tahay waxay la eg tahay tan 330 degree bay la eg tahay plus root 3 waxay la eg tahay sec 330 ustaad waxaan isweydiinaynaa reference angle-ka 360 meeqa waay reference angle-ka 360 ustaad waa 30 degree tan 30 degree meeqay la eg tahay ustaad tan 30 degree waxay la eg tahay tan 30 degree ustaad waxay la eg tahay negative 1 all over root 3 waa kana hore ayaan usoo saarnay waxba ku mashquulin ama ku wareerin waxay la eg tahay negative 1 all over root 3 plus root 3 waxay la eg tahay sec 360 degree ustaad meeqay la eg tahay sec 330 degree reference angle-kiisu ustaad meeqa waay reference angle-kiisu ustaad waa 30 degree therefore sec 30 degree imisa ay la eg tahay ustaad sec 30 degree waxay la eg tahay cos 30 degree ay la eg tahay cos 30 degree meeqay la eg root 3 all over 2 therefore sec waxay la ekaanaysaa reciprocal-keeda la ekaanaysaa oo ah root 2 all over root 3 waa la dabagediyey waxaan kaloo isweydiinaynaa ustaad quadrantaha afaraad 360 degree waa quadrant 4 cos positive mise waa negative cos waa positive all student take chemistry cos waa positive marba hadday cos positive tahay midaan sideedan ku deynaynaa qaybtan aan xalinaynaa qaybtan LCM keedu waa root 3 u qaybi waa 1 ku dhuf negative 1 waa negative 1 plus root 3 1 u qaybi waa root 3 ku dhufo root 9 square root ka saar waa 3 minus 1 plus 3 waa 2 all over root 3 qaybtan markaan furfurnay waxaa haysanaa 2 all over root 3 qaybta horena waxaa haystay 2 all over root 3 labadan ustaad soo ismu waafaqin yes halkan waa positive halkan waa positive waa isku qiimo marka solution setkaada wuxuu noqonayaa ustaad 11 by all over 6 midaan ayaa solutionka buuxinaysa ama shuruudaha loogu talagalay midaas ayay buuxinaysaa ustaad example 1.27 halkaas ayaan kaga gudbaynaa insha Allah